saaxiib yaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oon ku soo qaadanayno types of RCC columns noocyada kala duwan ee columnska ah inagoo markaas ka fiirinayna slenderness ratio. Okay, nooca koowaad marka maxaa la yiraahdaa waa short column. Sida magacaaba aad ka dareemaysid columnyadan waxay leeyihiin height gaaban. Okay, height-kooda yar maadaama short lagu dhahay magacaaba ka faham. Markii la barbar dhigo noocyada kale ee columnska ah waxaana loo yaqaanaa short column. Okay, waxaa jira marka nidaamyo ma aragtay degsan oo lagu qiimeeyo ama lagu jaagareeyo columnka inuu yahay short iyo inuu yahay long ama slender marka la joogo designka. Okay, si guud marka columnyadan markay fail garoobayaan marka waxay u fail garoobaan by crashing, waa isku burburayaan macnaha ama shearing ahaan ayaa macnaha ku dhacayo. Marka la kala qaybinaa marka waxay ku base garaysan tahay effective height, waa dhirirka columnkeena ayay ku base garaysan tahay iyo cross sectionka uu yeelanayo. Okay, waxaa lagu dhahaa marka guidelineska isla fiirinayna marka guidelineska data uu noo sheegay codeka marka aan hadda aan raacaynana waa British code. Okay, haddii columnkeena uu yahay marka braced, waa soo barna braced waxa uu yahay qaacidadan isticmaal labadan qaacida isticmaala si aad u hubiso inuu yahay short iyo inuu yahay slender. Si uu short u noqdo marka lex loo qaybiyo h waa inay ka yaraataa 15, lex loo qaybiyo b waa inay ka yaraataa 15. Okay, columnkeena marka sidan uu yahay oo kale height-ka effective-ka aan qaadanayna. Okay, okay, effective height-keena ee mar walba waxa u qaybinaynaa labadana markasta u qaybinaynaa. dhinaca dheer maxaa la yiraahdaa waa h. Okay, dhinaca gaabanna waxaa loo yaqaanaa b. So marka effective length-ka h u qaybi waa inuu 15 ka yaraadaa, effective length-ka u qaybi dhinaca gaaban waa inuu 15 ka yaraadaa. sidaa dareed marka markaan waxaa dhihi kartaa columnkeena waa short, laakiin waa columnka markuu braced yahay waa. laakiin columnka hadduu unbraced yahay lex loo qaybiyo h waa inuu ka yaraadaa 10, lex loo qaybiyo b na waa inay ka yaraataa 10. Okay, so marka iska fiiri make sure unbraced miya mase braced intaada go'aamin short iyo slender midkuu yahay intaada go'aamin. waa kana marka sawirkiisa short column. Okay, columnka ma ka gaaban yahay kan kale marka loo fiiriyo markuu fail garooba culayska markuu aad uga batana by shearna dhacay inuu isdhaafo. Okay, qaybtan dhinacaan ay u degto. Okay, qaybtan kalena meesheeda ay joogto. Okay, shearna dhacay marka shearing waxa la dhahaa shearing failure-kiisa waa qaabkaas. nooca labaad marka maxaa la yiraahdaa slender column. Slender column magaca kale loo yaqaan waxaa la yiraahdaa waa long column, kaasoo cagsi ku yahay. Okay, wuxuu ku dhahaa marka ratioska hadda aan soo barnay isku qaybiskan aan soo barnay formulada aan soo barnay haddii ay ka weynaato. Okay, ama ay la ekaato qiimayaasha meesha noogu qoran. tusaale ahaan hadda noocan lex loo qaybiyo h waa inay ka yaraataa 15 soo ma ahayn. haddii ay ka weynaato ayuu ka wadaa ama ay la ekaato 15 waxaa leenahay columnkaas waxaa leenahay waa slender. qaabkaas ayaan markaa design garaynayno ku xukminaynaa inuu yahay slender. so marka formulooyinkan kanna waa inuu 15 ka weynaadaa, kanna waa inuu 15 ka weynaadaa si uu u noqdo slender. Okay, waa markuu braced yahay. unbraced markuu yahana kan waa inuu ka weynaadaa 10, kanna sidoo kale waa inuu ka weynaadaa 10. Okay, so markaasna waxaan leenahay waa slender column. Okay, wuxuu ku dhahaa marka columnka noocan oo kale markuu fail garoobayo wuxuu u fail garoobaa by buckling. Okay, isla aragna marka columnkeena hadda waa kan ahaa sidaa u jeedid sawirkiisa markiisi hore sidaan ayuu ahaa. Okay, sidaa u jeedid markiisi hore saan ayuu ahaa. culays ayaa la soo saaray marka marka culayska la soo saaray marka sidoo noqday calooshaas ayuu yeeshay. Okay, sidaa u jeedidba. Okay, calooshaas ayuu yeeshay. marka caloosha noocaas oo kale markuu yeelanaa buckling ayaa la lahaa buckling. Okay, buckling failure ayaa la lahaa. Okay, wuxuu ku leeyahay marka columnska longiga ama slender columnka ah waa weaker, waa daciif marka lala barbar dhigo short column. yacni longiga daciifsan isku cross section baba ahaadaan. yacni short iyo maxaa la dhahaye longiga iyagoo isku cross section yihiin mar kastana culayska la soo saaro isku mid uu yahay waxaa weaker ah ama tacbaan ah columnka longiga ah. Okay, so marka lamana door bidow ku leeyahay columnkan inta badan haddii wax duruuf kugu qasbin markaas kan kala awood badan oo ka wanaagsan. inaa isla fahnay ayaa rajeynaynaa saaxiib yaal.